dastuurku qabya maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxa waaye ilaa laga ansaxiyo umbuu draft yahay ma ahee Soomaaliya waxay isdhihi lahayd waystri Djibouti laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen ilaa hadda muxuu ahaa senator Cabdi Qaydiid iyo tiimkooda waxay Soomaaliya isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinaya wax aqliya oo naga maqan oo banaanka naga jira huma jiraan waxa la yiraahdaa wuu iska hor imaana dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xiran tahay in ilna xariis lagu fiiriyo in niyad waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhiman hadda hawsheedu socotahay aan iimaansanno gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhaxlayno waxa ka mid ah sida loo sheegay systemkan federaalka oo aan haysanno mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareerto halka aan ku taagsanahay waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansano oon wanaagsano ayay taladeenu ku jirtaa sida dad badan oo yaqaan ay og yihiin aniga samafalkan ka soo shaqeyn jiray dad baan wax u qeybin jirnay dadka marka safka la geliyo haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qorraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan hawshu fudeed ay ku soconaysaa laakiin haddii safka mid gooyo oo wuxuu xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo waxa dhan waa isku dhaxyaacayaan waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansano haddaan dastuurka u hoggaansano qorrax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno waa waddan dagaal ka soo kabanayo laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanan isnaciin wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaalaan